gobol ka mida maamul goboleedkan galmudug oo la yiraahdo galwaaq waxaan ka hadlay magaalo madaxdiisa caabudwaaq habeenkiina khudbadaydii intii u badnayd waxaan u hibeeyey arrintan ayada ah maxaa yeelay waxay leedahay mudnaanteeda taa haddaan ka gudbo waxaan rabaa inaan halkan ayagana kala hadlo walaalaheenna gobollada waqooyi ee Soomaaliya runtii waxaa muhiim ah Soomaali isma hurayso faragelinta noocan khatar badan bay ku haysaa nabadda gobollada waqooyi oo maanta marka loo eego waddanka qaybihiisa kale xasilan waxay khatar ku haysaa geeska Afrika oo dhan bay khatar ku haysaa waxay khatar ku qaban doontaa wadamada Afrika oo dhan oo say ku dhisan yihiin aynu garan karro waxaan oran lahaa go'aankan arrinta ofarkan khatarta badan oo Netanyahu nagu soo dhex tuuray kuma jirto danta gobollada waqooyiga Soomaaliya kuma ay jirto ha laga taxadaraan dhihi lahaa Soomaaliya waa wada kaban kartaa gooni uma kala kaban karto waa muhiim inaanun aragno inaanun wixii farqi ah oo noo dhaxeeya aanu miiska la tagno waa muhiim inaanun dadka aan ishurini waa ay tashadaane aynun hawlaheenna hoos u xalilano waxaan u mahadnaqahayaa runtii dadyowga sida degdega ah noo garab istaagay IGAD AU-da Arab League Security Council-ka iyo intii wadamada saaxiibada ah iyo intii kaloo aanan xusin laakiinse nagu garab istaagtay arrintan in ka badanna waa u baahannahay maanta Soomaaliya waxay ku jirtaa tijaabo madaxdeeda ku jirta siyaasiyiinteeda ku jirta shacabkeeda ku jira gobollada waqooyi oo arrintani tooska u khusaysa ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaanan ku dhicin haddaan ka gudbo waxaan ku soo gabagabaynayaa toobiga shirkan caawa aynu isugu nimid oo la furahayaa waxa weeye hanaanka Soomaaliya ku gaari karto aragti siyaasadeed oo midaysan jaagoynta sanad hebel ilaa sanad hebel hadda ka hor 5 sano ka hor waxaa lagu qabtay Garowe isla shirkan laftigiisa wax ka xumahay inaan saas u sheego laakiin 2020kii markii la qabtay iyo maanta ummaduhu horay bay u socdaan laakiin aniga qiyaastayda iyo cilmi baarisyo badan oo ka jawaabi doona 2020kii iyo maanta oon marayno 2025 waxaan dambaynaa xag siyaasadeed iyo dhan walbaba maantaan dambayna waa nasiib darro haddii tan hore isbedeshay jaangooyaduna waa isbedelaysaa oo jaangooyo lagu rakibi karo 26 iyo 30 maaha jaangooyadii aynun 2020kii ilaa 2025 aynu lahayn yaa ayadana isbedelaysa haddii toobiga hore isbedelay sidaa la aligeed toobiga muhiimka oo caawa ay ahayd inaan wax ka niraahno maadaama dib u dhac labada qaybood oo toobiga khusaysa uu dhacay si cilmi ahaan uga doodi doonaa berrito panel discussionska ugu muhiimsan oo berrito labada ballansan baan ka hadli doonaa maadaama isbedel uu dhaco annaan horay u soconay gadaal aan u soconnay waa wax ugub ah dad gadaal u socday waxay u baahan yihiin siyaasad degan aragti iyo qiimayn kale sidaa la aligeed taas caawa waxba kama dhihi karo berritaan ka shiraynaa wixii ka soo baxana communiquegaad ka arki kartaan ilaahay waxaan rajaynaynaa inaan sidaan oo kale marna unagu dhicino aan marka laysugu yimaado taana la oranin dib baa loo dhacay marka haddii dib loo dhacay wax walba oo la xiriira arrintan ayadana dib baa loo eegaya marka arrintan kama hadli karno maadaama dib u dhac uu jiro waa mahadsantihiin waa ku faraxsanahay fursaddan aynu isu helay mahadsanidin